markii labaad oo gudoomiyaha golaha wakiilada la dooranayo waa dimuqraadiyadda caadadeeda ayay tahay in dadku ay ku kala baxaan cod hadday gudoomiye golo wakiil lahaydna waxaa lagu kala baxayaa cod xildhibaan hadday madaxweyne tahayna waxaa lagu kala baxayaa cod babliga oo dadweynaha ummadda Soomaaliland ay kulligood wada codaynayaan waxaan markhaati ka ahay inaan codkaasi dhacay oo lagu kala baxay 38 iyo 39 waad garan karaysaa sida ay u tahay tight anigu waxaan ka mid ahay xisbiga kulmiye laakiin waxaan u codeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Taliya sababtaan ugu codeeyayna wax kale ma aha waa constituency-gaygii waa dadkii deegaanka ummadda iyo dadka aan ka soo jeedo waxaan ku ixtiraamay inaan codkayga siiyo constituency-gayga aan ka soo jeedo oo igala soo hadashay daafaha dunida oo dhan dadkuna waxaa loo baahan yahay taariikhdu iyadaa isqori doonta cidda Soomaaliland wax u ah ee cod u haysa ee dhul u haysa ee dad u haysa taariikhda qori doonta waxaan kaloo markhaati ka ahay in aniga iyo Cabdiraxmaan Taliyaanle midna uu gudaha ku dhintay midna dibadda ku dhintay sabab badan awgood oo jira sida daraaddeed waxaa dadka deegaanka iyo bulshada aan ka soo jeedaa ay isugu noqon doonaan tashi buuxa oo ballaadhan oo aannu ku hoggaaminno meesha ay dadka iyo dadku u arkaan dantooda anigu ma odhanayo dee adigu ogow laakiin waxaa khasaba in aannu deegaan ahaan Soomaaliland ka bixi mayno waannu ku jiraa waannu u shaqaynay adeer heerkaasaan soo gaadhsiiyey nin la yidhaahdo ma Soomaaliland baad ka baxaysaa ma ihi laakiin inaannu political regrouping samayno waan ku khasbanna oo aannu isu dunno dadkayaga iyo deegaankayaga oo aannu hor dhigno wixii dan u ah maya maan odhan anigu markii horena kuma qanacsanayn haddana kuma qanacsanayn haddana waa ka soo horjeedaa wax badan aad iyo aad baan u soo dhowaynayaa dimuqraadiyadda meesha ka dhacday waana sababta aan rabo inaan dadkii deegaanka u caddeeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu